بسم الله الرحمن الرحيم. maanta waa 15 May oo ahayd aasaaskii ururkii SYL oo hadda laga joogo muddo 72 sano ah. waxaan leenahay 13kii aasaasayaasha ahaa ilaahay ha u naxariisto, jannadiisa iyo naxariistiisa Allah siiyo, iyo guud ahaan howlwadeenadoodii oo ka shaqeeyay wax wanaagsan ummadda Soomaaliyeedna baray in qarannimo lagu keeni karo iyadoon la haysan dhaqaale iyo iyadoon la haysan aqoon fara badan. hadda waqtiga hadda la joogo oo laga joogo 72 sano waxaa la keeni la'yahay oo la fahmi la'yahay dhalinyaradaasi midnimada iyo qarnimada iyo Soomaalinimada waxay ku keeneen. waxaan ognahay oo intaas dheer in nin aqoon badan haysta uusan keeni karin qarnimo iyo Soomaalinimo, nin dhaqaale fara badan haysta inuusan keeni karin Soomaalinimo iyo midnimo. waxa lagu keeni karaa Soomaalinimo iyo midnimo oo u shaqeeyay SYL dhalinyarada 13 ah iyo howlwadeenadooda niyad wanaag iyo wanaag inay ka shaqeeyaan. maxaa yeelay qofku hadduu mar wanaag wax wanaagsan ka shaqeeyo waxa weeye waxaa timaada wax wanaagsan yaa yimaada. maxaa yeelay niyadda wanaagsan waxay keentaa wax wanaagsan ay keentaa. marka aasaaska wax walbaba waxa weeye niyad wanaag. marka ummadda hadda joogta ee Soomaaliyeed oo dhalinyarada u badan waxaan ku boorinayaa aqoontu way fiican tahay, dhaqaale in la raadiyo way fiican tahay, laakiin haddii la doonayo dal in la soo celiyo ama midnimo la helo ama Soomaalinimo la raadiyo waa in la yimaado niyad wanaagsan, qof walba inuu ka shaqeeyo inuu noqdo qof wanaagsan. kadibna waxaa imaanaysa markaasi in la keeno wax wanaagsan oo dalkaas ama dalkeena lagu badbaadiyo. marka insha Allah waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan aan xasuusnaano dhalinyaradaasi hawsha ay qabteen iyo ummadda Soomaaliyeed wanaaga ay u qabteen iyo waxa ay soo gaarsiiyeen ilaa hadda. wax badanna oo ay qabteenna aan ku dayanno. taasa wax lagu helaa midnimo iyo qarnimo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.